maalinkayga maalmeyga weekendiga maalmaha fasaxanahay Frank Dettori MBE member of order British Empire laga soo gaabiyay MBE okay champion horse riding jockey waxa weeye qof horse riding ka ku guuleystay oo horyala faraska xaynta ayuu wuxuu ka yahay sidoo kale qofka kale ka sheekeynayna waxa waaye Alexander Duke back and hila was singer and songwriter and actress waaye waa heesa qof heesa qoro iyo actress waaye readingka waxa ku hormaraynaa oo ninka waxaa la yiraahdaa ninkan Frank Dettori was born in Milan lagu dhalay Italy in 1970 1970 now he lives in England hadda wuxuu ku nool yahay England near Newmarket wuxuuna u dhow yahay meesha ku nool yahay Newmarket a market town magaalo waxa weeye suuqad famous oo caan ku ah it is race courses barxadaheeda tartanka ay caan ku tahay his wife xaaskiisa Catherine is English waa qof English oo England u dhashay and they have 5 children shan caruur u joogto Leo Ella Tallulah Rocco and Mia he doesn't have many weekends off ma haysto maalmo badan oo fasaxan yahay oo weekend ah Frank says I don't have many free weekends badan ama maalmaha fasaxa oo aan fasaxanahay oo badan ma jirto because maxaa yeelay on Saturday and Sundays ahadaha iyo sabtiga I ride faradaha ayaan kaxeeyaa I often have Mondays off jimcihi ayaa la fasaxa but then like xilligaas every badi qof kasta is at work shaqada u jira so I have no friends to play with saaxiibo aan la dheelo malihi that's very sad waana murugo arrinkaas good and I have some weekends free maalmaha fasaxa oo maalmaha jimcihi khamiista camlay noo ahay sabti waxa uu ahaa xad macna weekendiga oo fasaxa waxaan ka heesnaa kaliya waa yariin few aan ka heestaa wax yar oo dhan some and I like coming home waxaan jeclahay in gurigeyga imaado to my house hoygeyga inaan imaado near Newmarket oo dhow Newmarket it's nice waa meel fiican and I get home on Friday night habeenka jimcaha imaada put on my pajamas dharka jiifkan xirtaa and watch TV ayaan daawadaa brilliant aad iyo aad u wanaagsan tahay but it's very noisy laakiin buuq badan ayaa jira okay I have 5 kids shan caruur ay joogto and a lot of pets iyo rabaayada fara badan one of my daughters mid kamid ah gabdhahayga got an MU waxay goroyo ka soo gadatay internet qadka and he is called Bruce ayaa la yiraahdaa okay lives in the garden beertu ku nool yahay and we also have Jacko waxaan haysanaa sidoo kale bulac it's my son wiilkayga iskale a hedgehog kule cali banjar haysanaa two donkeys laba dameerna ma noo joogtaa okay on Saturday night habeenka oo sabtiga ah I sometimes cook waxbaan kariyaa I usually do fish and chicken aan sameeyaa but I cook good pasta as well sidoo kalena pasta fiican waa kariyaa obviously sida iska cad Italian food is my favorite cuntada Talyaaniga waa cuntada dooqiga I am big fan of Japanese food as well sidoo kalena waxaan aad uga helaa cuntada Japanese ayaan aad uga helaa good halkan waxaan ugu qoran on Sundays maalmaha xadaha my kids often compete in a pony club shows tatana ay ka qayb galaan oo pony shows ah ama meesha lagu tartamo pony club competitions last whole day maalinka dhan oo socona tartanka fardaha we back waxaynu xiriirinaa a picnic cunto aan ku cunayno meesha picnic ah
and bonus iyo fardaha yaryarka ah ama qaylasha ama fardaheena. Okay, our 3 dogs saddexdeen ay all set of dhamaan waxaan bilaabaynaa for the show. waxaan aadaynaa showga ayaan aadaynaa. An happy family waa happy family reer isku faraxsan weeye. I like watching the kids on their horses. waan jeclahay inaan daawado ciyaal oo fardahooda saaran. In the evening feedkii I usually watch football game. Ciyaar banooni aan daawadaa and I am Arsenal fan. waxaan taageeraa kooxda Arsenal. I'd love waxaan jeclahay to be a footballer ciyaartooy inaan noqdo iska rabaa but I'm too small. aadan yarahay. By the end of the weekendiga markuu dhamaanayo the house is a mess. waa isku dhex yaacsan guriga and there are children's toys. caruurta bombolooyinkooda and clothes iyo dharkooda ayaa yaala everywhere meel kasta. Catherine gets the kids to bed. Catherine ciyaalka ayay seexisaa and I have a glass of wine. anigana koob khamri ayaan cabaa ayuu leeyahay. nagarad islaantan ayadana waxaa la yidhaha Alexandra Back was born in London aan lagu dhalay and she now lives in a village near the city. waxay ku nooshahay xaafad u dhow magaalada caasimadda. She's a quarter Jamaican, Indian, and Irish and English. afar qaybood, qayb Jamaican ka tahay, qaybna Indian ka tahay, qayb Irish ka tahay, qaybna English ka tahay. Her mother was a soul and R&B singer. waxay ahayd heesaha R&B-ga iyo soulka kuwa qaaday ahayd. Alexandra waxay ku guuleysatay the TV talent show The X Factor ayay ku guuleysatay. And now stars hadda waxay wax ka jishaa in West End musical theaterkaas ay wax ka jishaa and she likes to spend weekends at home. waxay jeceshahay inay ku qaadato weekendiga xaafadda with her dogs and family iyaheeda iyo reerkeeda. Okay, Alexandra says waxay leedahay on Fridays I like to have my family to my home. reerkeyga inaan gurigeyga ku haysto ayaan jeclaha maalmaha fasaxa. My brothers David and Aaron, walaalkay Harun iyo David, my sister Shanice, my mom and my dad. I always cook. ani markasta waxaan u kariyaa and I make waxaan sameeyaa spaghetti bolognese ayaan sameeyaa. baastadaas qaabka loo karina bolognese-ka. my favorite food waa cuntada aan aniga ka helo. I love it. waa jeclahay. My 3 dogs Alvi, Prince and Cherry run around. waxay meelahay ka ordaan and there is a rag music. so Jamaican ayaa jiro because my dad is Jamaican. maxaa yeele aabe Jamaican and dad lives near me. aabe wuxuu ku nool yahay agteed. Okay, he is a chef. waa cunto kariye. I want to learn how to cook to make Jamaican food. waxaan rabaa inaan barto sida loo sameeyo Jamaican food. On Saturdays maalmaha sabdiga I get up late. xilli dambe hurdada ka toosa. Alvis sleeps on my bed. eyga Alvis sariirteedu seexaya. Then I take dogs for walk. waxaan u wadaa for walk majabaxsi aan wadaa. And I often spend the day with my niece and nephews. gabdhaha eedada ama habrarta aan u ahay ayaan la joogaa and wiilasha nephews wiilasha aan u ahay habrarta ama eedada. Okay, I have a picnic lunch. qada oo picnic ayaan qaadanaa. inta meel lagu kariyo la qaataa la yidhaha picnic lunch. In the garden aan ku soconnaa when it's nice and hot. markay wanaagsan tahay kulal jiro we go to the back. beerta ayaan aadnaa. As a Jamaican family, sida inaan nahay reer Jamaicana, we like to have chicken soup. maraq digaag ayaan jecelnahay on Saturday night. habeenka sabdiga dad usually makes it. aabaana noo sameeya mar walba. On Sunday morning subaxa axadda I often do a hot yoga class near my home. yoga ayaan sameeyaa. Okay, near my house gurigeyga agtiisa. Then I go to the church kabacdi kiniisadda aadaa. Okay, it's always very lively. waa mid oo toos u soconaysa with a lots of singing. heesa fara badan way jiraan nabraan.
and a band iyo koox. After judge kiniisadda dabadeed, we sometimes go to the park and for roast dinner. Inta la furneeyay ayaan u doonanaa roast waa furnay, and then go home gurigaan iska aadnaa and watch football together as a family. Reer ahaana waxaan u daawanaa Browniga. My family support Arsenal. Reerkii Arsenal ay taageeraan, but I am Manchester United fan. Ani taageero Manchester United ayaan ahay. In the evening, we sometimes drive into London aan gaari ku haysanaa, go to the club and the Dairy Club in Covent Garden is great on Sunday. Clubkaas club fiican oo leedahay hadda aadna. It's got a great music and my dad often comes too. Aabahayna markas uu imaadaa. There is never ma jiro maalin, there is never day, there is never a day. Weligay maalin soo marin when I don't speak to my mama, hooyaday la hadlin, and dad iyo aabahay. I talk to my brother and sister, hooyaday walaalahay la hadlaa iyo walaashay too. I have a lot of great people around me that aad wanaagsan ay u hareeraysan. I am very lucky. aad u nasiib badan ay leedahay taasa islaantaana. Okay, thank you very much ka shaqeeya